Assalaamu calaykum asxaabta ku xiran barteena Ogaalo. Maanta muuqaalkeen waxaan daaha kaga qaadaynaa sababtii ka dambeysay dhimashadii boqorkii qoobka ciyaarka Michael Jackson. Waxaa jira waxyaabo badan oo loo aaneynayo dhimashada Michael, sida inuu dilay dhakhtarkiisa qaaska iyo sidoo kale inay dileen qolyo ogaaday inuu Michael islaami rabay, ayagoo ka baqay in haddii uu Michael islaamo dad badan oo asaga taageersanna ay islaami doonaan. Haddaba waxaan muuqaalkeena ku eegaynaa sababta dhabta u dhintay Michael Jackson, annagoo keeni doono caddeymo iyo baaritaanadii ay sameeyeen booliisku. Daawasho wacan. bishii March 5, 2009, Michael Jackson waxa uu London kaga dhawaaqay showgiisii ugu dambeeyay uu ku qabanayo London, kaas oo ugu magac daray This Is It. These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it really means this is it. Isu diyaarinayay showgii This Is It, Michael Jackson waxa uu muuqday mid caafimaad dhammaystiran qaba. Waxa uu ugu diyaar garoobayay inuu noqdo showgani mid gebi ahaanba ka duwan showyadii hore uu soo qabtay, maadaama kan uu yahay kiisii ugu dambeeya. Dhanka kale, Michael Jackson waxa uu lahaa dhakhtar u qaas ah oo lagu magacaabo Dr. Corned Murray, kaasoo si aan kala joogsi lahayn Michael u diri jiray daawada lagu magacaabo Propofol. Daawadani waxaa loo isticmaalaa bukaanada galaya qalliinka, waxaana la duraa intaysan gelin ka hor qalliinka. Waxaana Michael daawadan loo siin jiray si uu u seexdo. Dhimashada Michael kadib, Dr. Murray waxa uu sheegay inuu Michael asaga isticmaali jiray daawada, xitaa ay isku dayay inuu ka celiyo dhowr jeer, laakiin uu Michael ka diiday. Bishii June 25, 2009, Michael Jackson waxa uu gurigiisa ku soo laabtay habeen saq dhexe. Habeenkaasi Michael waxa ku adkaatay inuu seexdo. Sidaa darteed, Dr. Murray waxa uu isku dayay inuu Michael siiyo daawo ka hurudsiin karta, waxa uuna siiyay daawadii ahayd Propofol si uu u seexdo. Daawadii waxay muddo 10 daqiiqo ah ku saameysay Michael, waa uuna seexday. Dr. Murray waxa uu la joogay Michael ilaa uu ka seexanayay. Daqiiqad kadib seexashada Michael, waxaa qolka jiifka Michael isaga baxay Dr. Murray, waxa uuna galay musqusha. Gelitaankiisa musqusha kadib waxa uu si degdeg ah u bilaabay inuu ku hadlo taleefankiisa. Dr. Murray waxa uu ahaa qofka kaliya ku jiray qolka Michael. 2 daqiiqo kadib waxaa qolka jiifka Michael dib ugu soo laabtay Dr. Murray, waxa uuna arkay Michael oo aan neefsanaynin. Waxa uu isku dayay inuu sameeyo CPR, laakiin Michael neef weli way ka soo bixi weyday. Intaa kadib haddana waxa uu diray daawo kale si ay Michael ugu soo baxdo neef, laakiin kuma uusan guuleysan oo weli Michael neefka ma socoto. 12kii habeennimo waxaa guriga Michael laga soo wacay 911. Qofka soo wacayay magaciisa ma uusan bixin, si la mid ah magaca bukaanka ma uusan xusin. Daqiiqad kadib waxaa guriga Michael soo gaaray ambalaas iyo dhaqaatiir, waxayna isku dayeen inay Michael badbaadiyaan, laakiin Michael mar hore ayuu hurdadii dhabta ahayd seexday oo waa uu dhintay. Xilligaas Dr. Murray waxa uu dhinac ka noqday dadkii gargaarka u fidinayay Michael ilaa meedkiisa laga geeyay isbitaalka. Ugu dambeyntii 2:32 daqiiqo habeennimo, meydii ayaa ku dhawaaqay dhimashada Michael Jackson. Sida aan horey u soo sheegnay, June 2009, Jackson waxa uu isu diyaarinayay inuu qabto showgiisii ugu dambeeyay, kaas oo loogu magac daray This Is It. Laakiin June 25 isla sanadkaas waxaa si lama filaan ah dunida u qabsaday dhimashadiisa. Guud ahaan qoyska iyo taageero dhammaantood waxay ku eedeeyeen dhimashada Michael, Dr. Corned Murray. February 8, 2010, waxaa Dr. Murray loo soo xiray inuu asaga dilay Michael Jackson. September 11, 2011, waxaa maxkamadda la soo taagay Dr. Corned Murray. Dunida dhanna waxay ka warsugaysay go'aanka maxkamadda iyo baaritaanadii la sameeyay. Caddeymaha la helay waxaa ku jiray in Dr. Murray uu Michael Jackson duray daawada Propofol 40 jeer. Dhanka kale, ninka difaacaya Dr. Murray waxa uu sheegay inuu Michael asaga isticmaalay daawada uusan siinin Dr. Murray. Caddeymaha kale oo la helay waxaa ka mid ah inuu Murray sheegay inuu qolka ka maqnaa markii uu Michael seexday muddo dhan 2 daqiiqo, laakiin baaritaano lagu sameeyay moobilkii ku hadlayay xilligii ku jiray musqusha waxaa lagu ogaaday inuu ku hadlayay muddo dhan 47 daqiiqo uuna la hadlay 3 nambar oo kala duwan. Sidoo kale, moobilka Dr. Murray waxaa laga helay cod uu ka duubay Michael Jackson dhimashadiisa isbuuc ka hor. Codkaasi waxa uu muuqday inuu Michael ka caawinayay daawada uu duri jiray Dr. Murray. Muddo 2 bilood ay socotay dacwadda maxkamaddu, ugu dambeyntii waxaa lagu dhawaaqay xukunka.
November 3, Dr. Cornell Mary waxaa lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah, laakiin Mary waxa uu xabsiga ka soo baxay 2 sano kadib maadaama uu si wanaagsan u dhaqmay 2 sano uu ku jiray xabsiga. Markii la soo daayay Dr. Cornell Mary waxa uu bixiyay wareysi ku saabsan inuu ku lug lahaa dilka Michael. What responsibility do you take For his relation to- death? Yes. None. None. Absolutely nothing. Nothing. Nothing that I gave Michael Jackson should have killed him. Ugu dambeyn dilka Michael waxaa ka dambeeyay dad badan. Waxaa kow ka ah Dr. Cornell Mary oo Michael duray daawada propofol wax ka badan 40 jeer. Sidoo kale qof kasta oo ogaa inuu Michael daawadan isticmaali jiray ayaa dilka Michael qayb ka ah. Sidoo kale isla Michaelka naftiisa ayaa qayb ka ah dhimashadiisa, waayo daawada gurigiisa ayay taalay si boqolkiisa jiifka, asaga ayaana raali ka ah in la duro. Waxaan filayaa inay caddahay qaabku uu u dhintay Michael Jackson. Waxyaabaha kale waa maalawaal aan caddeymo loo haynin oo ay dadyow iska saadaaliyeen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.